sida aan la socono wadanka wuxuu ku jiraa marxalad doorasho howlihiina waa bilowdeen marka waxaan halkaan idinkugu soo gudbinaynaa kadib wada hadal iyo sheekaysi dheer oo aan ka yeelanay marxaladaha dalku maraayo doorka ay ku leeyihiin salaadiinta Soomaaliyeed iyo hadda sida wax u socdaan waxa ka soo baxay war murtiyeedkan maanta oo taariikhdu tahay 25 bisha 8aad 2021 bismillaahir rahmaanir rahiim war murtiyeed sida la wada og yahay dhaqanka Soomaaliyeed duubabka 135 waa hay'ad dhaqan oo ah marjaca ugu sareeya hay'adaha dalka Soomaaliya sidoo kale duubabku waxay ahaayeen tiir dhaxaadkii ugu horeeyay ugu weyn marxaladihii kala duwanaa ee dalkeenu soo maray haddaba iyadoo lagu jiro doorashada Soomaaliya xilligeedina uu bilowday waxaan dareenay inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagno hadba yaani fikirkeena iyo waxay nala tahay iyo doorkeena wuxuu yahay inaan u cadeyno haddaba doorasho hadda socota waxa wax la yaab ah in la yiraahdo waxa wax dooranaya ergo 4.5 oo saldhigeedu yahay qabiil sida loo og yahana qabiil waxa madax u ah duub ama isin ama suldaan ama boqor cid wuxuu rabaa hade mana jiro inteena haddaan is wareysanay inta kale naga maqanba inta doorashooyinku bilowdeen ilaa iyo hadda qaar kamid ah howluhu ay meel dhaxmarayaan oo habraacyada qaarkood la soo saaray haddaan is wareysanay waxaan iska weynay qof naga mida oo la xiriiray oo wax laga weydiiyay doorashada iyadoo doorashadu qabiil tahay qabiilkuna uu duubku madax u yahay waxa la soo xulay in ay ergay yihiin nasiib darada intaas la eg waa waxaan la yaabnay lana qaada karin waa waxyaabaha aan aad u maartay isku keenay inaan dareenkeen la wadaagno bulshada mar kale haddaba nasiib darada la yaab kale noqotay si baalmarsan shuruucda iyo curfiga wadanka u yaala in si aan gabasho iyo sariigashan lahayn la isugu dayo in lagu tirtiro kaalinta duubabka iyo odayaasha dhaqanka 135 ee la isku qanciyo in maanta laga talaabsan karo ama la qariyo doorkooda duubabka Soomaaliyeed waxa ay bayaan ku soo gudbinayaan talooyin ku saabsan in ay raacaan madasha wada tashiga qaranku duubabka 135 ee Soomaaliyeed ayaa xaq u leh inay howlgeliyaan odayaasha dhaqanka iyo qaybaha bulshada ee soo xulaya ergooyinka doorashada jufada kursiga isla wadaaga maadaama aan weli loo gudbin doorasho dadweyne oo qof iyo cod ah oo uu hab qaybsigu weli beelaysan yahay sidii horeba u dhici jirtay 2016 duubabka Soomaaliyeed 135 waxa ay gudoomin doonaan go'aanka bulshadu ku soo xulanayaan ergooyinkooda iyaga ayaana xalin doona haddii khilaafaad soo dhaxgalo bulshada dhexdeeda ka yimaado bulshada dhexdeeda iyaga oo kaashanaya bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan faraynaa golaha wada tashiga qaranka in ay ka laabtaan habraaca ay soo saareen gaar ahaan kuwa ku saabsan in dhaqaale laga qaado ergada in guddiga farsamada doorashada ay soo xulaan qayb kamid ah ergada waxyaabaha ugu yaabka badan guddigii farsamada ee la raba in habsamo socodka iyo cadaaladda ay ka shaqeeyaan oo ay garsooran haddii khilaaf yimaadana ay duubabka iyo salaadiinta kale iyo jufada isaysta ay la kaalmeeyaan iyaga ayaa qayb ka ah iyagana garsoor ah guddiga wax soo xulaayo qayb ergada la soo xulana iyaga qayb ka soo xulaayo waa waxyaabaha la yaab kale oo aragnay ugu dambeyntii ismada ma ahan shaqaale dawladeed oo lagu amrayo inay ka qayb qaataan howl aysan iyagu waxba ka ogeyn salaadiintu mar walba waxay u taagan yihiin kana qayb qaadanayaan nabadgelyada xasiloonida iyo geedi socodka dawladnimada Soomaaliya ugu dambeyntii ummadda Soomaaliyeed waxaan u cadeynaynaa duubabku diyaar uma aha inay markhaati ka noqdaan raqda bulshadooda la kala qaybiyay qayba meel loo diray kadibna iyaga la yiri idinka iyo gabdhihiin dhinac ku socdaan dhalinyarada dhinac ku socdaan bulshada rayida ergo
adiga waxaas waxaan naqaano maahan marka raqda dadkeena la kala qeybi markaati kama noqon doono waxaana leenahay qof walba roolkiisa ha la siiyo siyaasigiisa ha qaato dhaqankiisa ha loo dhaafo culimadeed ha loo dhaafo qof walba roolkiisa ha loo daayo waxaa la isku haysta anaga waa roolkeeni waa ergo waa qabiil waa bulsho annagaa madax ka ah cid aan kala gogortamayna ma jirto. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.